السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروري الصوبان سو دواذا سو دركا يقول سو دركا رير حمرك واحد هذا سو سكنو وار سو دركا سو ياعا كسو دواذا Somali speakers channel kan Somali speakers waxa loogu talagalay marka hore wacyi gelin ayaa loogu talagalay oo in bulshada lagu wacyi geliyo waxa loogu talagalay dhalinyarta in la isku xiro in dhalinyartu isku jeclaato in dhalinyartu ay ogaadaan Soomaalinimadu waxay tahay inay ogaadaan in dhalinyarta la tusaaleeyo oo la tilmaamo oo toobiyaha fiican lagu rido waa intaanu ka shaqeynaa qabyaalad iyo qaxar iyo qashaabuur iyo waxaas shaqadayada maaha channelkan waxa loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan waxaanu kaga faaloonaa oo kaga hadalnaa kolba xaaladaha siyaasadeed iyo loolanka Soomaaliya ee siyaasadeed ka socda halka uu marayo imikana waxaanu soo wadnaa waxba dib ha u boodino ha baqanine imikana waxaanu soo wadnaa barnaamij aanu kaga hadlayno afka Soomaaliga iyo dhaqanka aanu kaga hadlayno oo dhalinyaro insha Allah ta'ala diyaara aanu doonayno afkoodii hooyo inay hodan ku noqdaan oo aanu iyagu isceelin waxaad arkaysaa 40 jir Soomaaliya oo laba eray aan soo rogan karayn oo Soomaaliya oo u baahan in loo turjumo ayeedii baa looga turjumaya dhibaatayna haysata weeye hadii maanta inagu af Soomaaliga inta aynu ka garanayno iyo dhaqanka intaynu ka garanayno hadeynaan jiilalka soo socda hadeynaan u gudbin oo inaan iyaga ku wareejin waxa dhacaysa luqadda af Soomaaligu inay dabar go'do taasi saanay u dhicin waxa la doonayaa inaynu maanta ku dadaalo af Soomaaliga in lagu hadlo dad baa ka xishoodaba af Soomaaliga in lagu hadlo inan baad isleedahay la yara hadalo waxa rabtaa inaad ku tiraahdo yaa wagwan she looks kind of peng, you know, she looks lang waxaasay doonaysaa the other head even though I've been on the roads and you know I've been married to the streets for a long time but what streets ka waan furay wadada waanu kala tagnay muddo 10 sano ku dhow 3 dalqadood baan ku furay waan isteynay suuqana waan ka fadhiistay oday weyn baan imika aabaa oo dadka maxay ahaday talooyinka iyo toobiyaha fiican ku rido oo wanaaga iyo maxay ahaday Soomaaliyo la mideeyo ka shaqeeya ayaan noqday marka xogogaal baan u ahay wadada iyo maxay ahaday what they call the street life wanu soo wada marnay Soomaalidu waxay ku maamaadaa ceel ninkii galay ayaa la wareystaa ama geelaba jir soo wada marka waxa weeye dhalinyarta ayaan leeyahay af Soomaaligiin ku faana English tani waxana ku hadlaysaan iyo like war waxa iska daaya wallahi ilbaxnimo maaha Ali Sugullaa wuxuu yiri afqalaad aqoontu miya war aqoontu maaha in English lagu hadlo aqoontu waxa weeye dhabti inuu ninku af Soomaaligiisa iyo luqadiisa hooyo ku cilbixi karayo weeye haddaba barnaamijkaas waxaynu kaga hadlaynaa dhaqanka oo kala baxa af Soomaaliga oo u kala baxa tix iyo tiraabtu waa tan imikeedii kula hadlaaya iga qabta tixduna waxa weeye waxa la yiraahdaa maansada mahmaahda iyo maansooyinku maansaduna way kala baxdaa waxay u kala baxdaa gabay oo ah boqorka maansada geeraarka ku xiga jiiftada iyo masafada ku xigta heesta ku xigta saarka ku xiga buraanburka maanso ayaa la yiraahdaa runtii taariikhda Soomaalida iyo dhaqanka Soomaalidana waxaad ka dheehan kartaa maansada Soomaalida iyo gabayada iyo geeraarada ay ku suntantay oo lagu suntay war ma fahanteen marka waxaynu u geli doonaa insha Allah ta'ala de kulli ciyaalka waxay noqonaysaa in hoosta looga soo bilaabay noqonaysaa ciyaalku waxa laga yaabaa af Soomaaligoodu inaanu heer fiican iyo darajo fiican inaanu marayn baa laga yaabaa waxay noqonaysaa in hoosta laga soo bilaabo micna ma sameynayso inaan ku jalbeebiyo gabayadii Ismaaciil Mira iyo geeraaradii Faarax Nuur iyo Cabdigahayr iyo Yowla iyo uma baahna kuwa imika wuxuu baahan yahay iyagu in hoosta looga soo bilaabo insha Allah ta'ala taana waanu ka shaqeynaynaa sidii systemkii loo bari lahaa carruurta af Soomaaliga inta waxa dheer oo daba socda hees hawleedkii iyo hees ciyaareed heesu way kala baxaan waa hees hawleed iyo hees ciyaareed geelu heesu leey waa loo heesi jiray geelu
qaybo badan buu leeyahay geela Soomaalidu ninka reer magaalkii geela wuxuu u yaqaanaa geeluun war maaha geelu wuxuu leeyahay kareeb buu leeyahay gamanna waa la yidhaa koromuu leeyahay qaalimo baar furana ayuu leeyahay golof buu leeyahay goloftu waa hasha markaa aan maxay ahaday armaanayn ama aan calooshu waxba ku sidin baa golof la yiraahdaa qaybo badan ayuu leeyahay haleeluu leeyahay oo geela markaa dhalaya ramad buu leeyahay geela horweynta ayuu leeyahay oo irmaano inta badan hawdka sare iyo meelaha la geeyo oo intan jeeska iyo rugta iyo guryaha iyo agagaarkan aan ka dhaweyn geelu markaa systemkaasa loo dhaqaa heeso lagu dhaqo heeso loo qaado ayuu leeyahay marka geela la arooriyo geelu markuu biyaha cabayo ceelka yimaado geelu markuu darka isu soo tubo geela marka la caraabinayo oo waa kilaha ninkii lahaa markuu hasha caraabinayay hooyay heblay bahalkii huluula lahaa yuko heerine hore uga caraw markuu ninkii ku faanayay geela ee uu yasaayay dadka lo'da iyo adhiga iyo waxa dhaqdo waa kilaha aanu suubiyo soo birmaalaa seexan waaye sabankan dhacay sacnin maaliyo sakaaraystiyo sabool adhiyari si u nool yahay Ismaaciil marana waa kilaha ari iyo lo baa lagu baxshaa aafa ku timide aarlaaga geela nafta lagu ilaashaa dab nin qaado duula mooye aan duceeyiyo diin ilaah iyo deeq lagu waa sida culimada looma cabanine caara dhuubiyo cara lagu helay markaas waxa weeye geela heesaha sulaha heesa fara badan oo imika aan meel ku qoray iyo in imika maskaxdeeda saa ugu quuxaysa ayuu leeyahay marka waxaan idin oran lahaa geelana waynu ka sheekaynaynaa caanihiisaynu ka sheekaynaynaa oo midabo oo maxay jaad fara badan iyo noocyo fara badan kala baxa dhay baa jirta maydhanaan baa jira kasoofeenkii baa jira suusici baa jira jinowgii baa jira karuurkii baa jira karuurku waa markay fadhiistaan inta badan caanaha geela lama lulo laakiin haddii la lulo marmarka qaar reer miyigu hadday lulaan oo haanta iyo dhiisha ay ku lulaan waxay ka soo saaraan subag bay ka soo saaraan subagaa waxaa la yidhaa bocor baa la yidhaa subagaa ka soo baxa kowdhaha waynu u geli doonaa mar rabo mar qura inaan saa idinku tufo mar rabo idinku tufi maayo waan idin kala dhigayaa insha allahu tacaala dhaqanka waynu u gudbaynaa waanaynu ka sheekaynaynaa insha allahu tacaala maansooyinka gabayga iyo geeraarku maxay ku kala duwan yihiin gabaygu imse qaybood buu u kala baxaa gabayga laftiisa ayaa kala baxaa waxa jira gabay labaala la yidhaa afar leh saddex leh gabayadii sayidkoo kale saddex leh u badlaayeen imika haddaan ku idhaa sagal jiidan caad jilicsan iyo jarar hilaacaya sagal jiidan caad jilicsan iyo jarar hilaacaya jarar haddaad maqasho waa daruuraha weeye jir haddaad maqashana waa roobka imika reer magaalku ilaa waynu dulowno af Soomaaligeeni baynu ka tagnay roobku markuu da'ayo wuxuu ku leeyahay roob uma da'aya war waxa da'aya waa roob ku leeyahay da'ada roobku badnaa ma maye baa da'aya ma sagal baa da'aya ma miiraala da'aya ma jirda gooya da'aya ma caleed baa da'aya ma todob baa da'aya ma diraac baa ya ma waxa ma dir sagaalaad baa war waxaan da'aya waa maxay ma xagaaya ma xays baa markaas roobabku way badan yihiin dhirtaynu u galaynaa dhirta ayaynu u galaynaa qansixii iyo maraagii iyo jilabkii iyo jiicii iyo galoolkii iyo labigii iyo dabigii iyo waynu u wada galaynaa waynu saasaynu jiiranaa dhirtuna way kala baxdaayo dhir hoosaad iyo wax dhirta dheer iyo dhirta dhaadheer iyo dhiraha gaagaaban dhir hoosaadkay kala baxdaa cawskii baynu u galaynaa isaguna dareemo iyo maxay wuxuu kala baxaa sifaar iyo tigaad iyo waynu dhex muquuranaynaa saabada ha sugi waayna afkiina ku ciil baxa waxa inoo ballana afkiina inaa barataan gabdhahana ku shukaansanasaan yow wagwan she looks kind of peng you know she's like my thing you know war waxa ka baxaniyo u heesinantaniyo u hees anigu heesaha wan qoraa jawigoo barwaaqa inanta markan faaninayo deegaanka aan tilmaamayo anigu ma waliba ma yihi hal abuurkan maansa baradka ee meelahan yaryar soo ka maasooda jawigoo barwaaqa jirweyne helayo buuxiye jidhaamaha oo jilabkiyo jiicuna hadba dhinac isjiireen jaahaaga quruxda leh jeegaan la moodiyey indhaha soo jiito kaba jeesan waaye inanta af Soomaaliga garanaysa dhaqanka garanaysa inta markan ku iraahdo way fahmaysaa inuu damaciga hayo
When my fighting, course I can move to them, and I can move to the pink things, the length things, the shit that you guys talk about all day. Yo, come off that shit, man. Inshallah ta'ala, we will see each other on Sunday. We will discuss this more in detail. My brother Khalid, Adman Ku Salame, Somali speakers. Hay soo khaawisana oo waxba aniga haytirisine. War channel ka subscribe ka ku qabta. War Soomaaliye haddaydan xoog iyo xoolabana siinayn badhanka taabta. Share gareeya. Ummaddu sidoo u gaaro wuu idin soo hormaraya oo marka dambe isagoo socduun idin soo hormaraya saadaadka marka waa dhag waa ku taabanaysaanun sidaydan maxay ahaydeen markasta u heshaan badhanka ku taabta baalka billahi alayk taabta